kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dunida waxaa ku yaalo garoomo diyaaradeed oo kala duwan kuwaasi oo intooda badan shaqeeya waqtiyo dhaadheer haddana anagoo wali ku guda jirna taxanaha tobanleyda waxaan maanta idin soo gudbinayaa 10 airport ee ugu wanaagsan caalamka marka 10aad Zurich International Airport wuxuu ku yaalaa dalka Switzerland waana garoonka diyaaradeed oo ugu weyn dalkaasi waana garoon baaxadiisa ay weyn tahay waxaana loo dhisay hab casri ah wuxuuna sameeyaa duulimaad joogto ah oo isugu jira gudaha iyo dibadda duulimaadkii ugu horeeyay ee caalami ah wuxuu ku soo degay 1920kii numberka 9aad Tokyo Narita International Airport wuxuu ku yaalaa dalka Japan waana garoonka ugu weyn gudaha dalkaasi waxaa si rasmi ah loo furay sanadkii 1978 isla sanadkaas ayuu sameeyay duulimaadkii ugu horeeyay oo ugu yimaaday Los Angeles ee dalka Mareykanka numberka 8aad London Heathrow International Airport wuxuu ku yaalaa dalka Britain waa garoon aad u baaxad weyn oo caalami ah sidoo kale waa garoonka ugu weyn dalka UK garoonkan waxaa la furay sanadkii 1946 London Heathrow wuxuu leeyahay 4 terminaal numberka 7aad Munich International Airport wuxuu ku yaalaa dalka Jarmalka waa garoonka ugu weyn dalkaasi baaxadda uu ku fadhiyay garoonka waa 15.6 km2 waana garoon loo dhisay hab casri ah waa garoonka labaad ee ugu mashquulka badan dalka Jarmalka marka laga hadlayo traafikada iyo baaxadda rakaabka oo ku mashquulsan kaliya waxa ka mashquul badan garoonka magaalada Frankfurt ee dalkaasi garoonkan waxaa la dhisay 1992 wuxuuna leeyahay 2 terminaal lambarka 6aad Chiba Central International Airport wuxuu ku yaalaa dalka Japan waa mid kamid ah garoomada ugu casrisan caalamka garoonkan wuxuu leeyahay ilaalo gaar ah oo ka shaqeeya amniga garoonkan waxaa la furay 17 Febraayo sanadkii 2005 numberka 5aad Hong Kong International Airport wuxuu ku yaalaa Hong Kong waa garoonka ugu weyn dalkaasi wuxuu sameeyaa duulimaadyo isugu jira maalinle iyo toddobaadle oo caalami ah waa garoon aad u baaxad weyn oo mashquul badan waxaa ka shaqeeya traafik aad badan sidoo kale garoonkan wuxuu qaabilaa rakaab aad u fara badan oo isaga kala yimaada daafaha dunida baaxadda uu ku fadhiyo garoonka waa 12.48 kilomitir oo square ah waxaa si rasmi ah loo furay bishii Julaay 1998 numberka 4aad Hamad International Airport wuxuu ku yaalaa dalka Qatar waxaa lagu bedelay garoonka la oran jiray Doha International Airport hadda waa garoonka ugu weyn dalka Qatar waxaana garoonkan loo dhisay hab casri ah garoonkan waxaa la furay 30 Abriil sanada 2014 numberka 3aad Incheon International Airport wuxuu ku yaalaa dalka Koonfurta Korea waa garoonka ugu weyn dalkaasi tan iyo sanadka 2005 wuxuu ahaa garoonka ugu fiican caalamka uguna mashquulka badan garoonkan waxaa la furay 29 bishii Maaj sanadkii 2001 numberka 2aad Tokyo International Airport wuxuu ku yaalaa dalka Japan wuxuu caan ku yahay magaca Haneda Airport waa garoon caalami ah oo loo dhisay hab casri ah garoonkan waxaa la furay sanadkii 1931 numberka 1aad Changi International Airport wuxuu ku yaalaa dalka Singapore waa garoonka kaalinta koowaad ee ka soo galay liiskan waana garoon aad u baaxad weyn oo loo dhisay hab casri ah garoonkan waa garoonka rayidka ugu weyn ee Singapore waana mid kamid ah garoomada ugu balaaran qaaradda Aasiya garoonkan waxaa si rasmi ah loo furay 29 bishii December sanadkii 1981 wanaagenta warbixintan kaga hadlay 10 airport ee ugu wanaagsan caalamka